dhalinyaradu waa saddex qaab ayay u kala baxaan ama saddex dabeecadood ayay dhalinyaradu ka kooban yihiin laa raabica mid afaraad soo heli kartid saddexdu maxay kala yihiin inta aan sheekada sharaxaadda guud iyo shaacinteeda guda gelin ka shanqariya beejko shartu yaani kala goyn sharaf weeye leegtiye mayla socotaa mar kale soo dhawaada waxaan idin iri dhalinyaradu waa saddex kama badno waa xaqiiqo ana idin iri qof iga dambeeyana la weydiin maayo maxay kala yihiin saddexdu koow xeer yaqaan waa nin dhalinyaro ah oo da'diisa ka weyna ah oo xeer yaqaan ah odayaal la joog ah waayo araga wax walba fahamsan qof walba iyo jiil kasta iyo meel kasta sida ay u taal ayuu ku qaabilaa waa nin xeer yaqaan ah oo qaamuus soconaya ah oo sida odayaashoo kale u dhaqma waxba kama khaldamaan xaal hadduu galana isaga ayaa xumayntiisa iska dhiibi kara waa nin isku filan oo ismeel mari kara yacni waxaa saaran maskax oday baa saaran waa waayo arag loo aamino wax kasta ninkaas waxaa la yidhahdaa xeer yaqaan duqow baa la yidhaha ugaaskaa la yidhaha caaqil baa la yidhaha taasii magacyo ka badanoo kaleba waa la yidhaahdaa haddii aad taqaano nin dhallinyaraa oo dabeecadahaas leh oo wanaagsanaa oo degeni iyo dulqaad iyo dadnimo ilaahaysi haddii aad taqaano soo mishan garay si aan ugu bogaadino dabeecaddiisa labo waxaan ku idhi xariif magaalo ninkana ugu cajaa'ib badana ila daawo waa xariif magaalo waa nin aad u tiro badan oo wejiyo badan isticmaala oo aan la qaban karin weeye lana fahmi karin isaga ilaahay unbaa is og ninkan isaga ah dabeecadihiisa waxaa ka mid ah 10 simikaar buu leeyahay 10 weji oo kala duwanna waa ku shaqaystaa waalidkiisa waa u baari habeenkiina maalintiina tusbax ayuu wataa waa wardiyaa masaajidkana 5 waqti uu kula tukadaa waalidkiisa iyo dadka kale qaraabada marka inta uu ka maqan yahayna wuxuu maleegaa dabeecado aanay ku aqoon haddii loo sheegana xitaa aanay rumaysanayn oo wiilkiina iyo ninkii hebel ahay baa sidaasi ka suura gashay maya wallaahi bay leeyihiin inaan la marsii karin ninkaa isaga ah 10 simikaar uu leeyahay aan ku idhi 10ka simikaar gabar walba mid buu kula hadlaa qof walba mid buu kula hadlaa tuu gabadha qudba siraysto oo maharkay madaxa uga guuraya dabeecado isticmaal ka mid ah deegaankiisa iyo dadkiisa midna ma baro gabadha uu la haasaawo ama uu guursado si biri ka maalin marka uu xumeeyo dadkiisii aanay u helin iyo tixraac midna si aysan u helin ayuu arrintaa u sameeyaa xariif magaalada la yidhaha isbaarada sheer uu ku leeyahay masaajidka safka hore boos uu ku leeyahay odayaasha wax qayb buu ka yahay dhalinyarada habeenkii wax qarbudo moobeelada dhacda qayb buu ka yahay ninka ilaahay isaga unbaa is og cid kale oo qaban kartaa ma jirto aad buu u xeeladaysa ogyaho xariif magaalada la yidhaha haddii aad taqaano nin dabeecadahaas leh oo dhuxul dambas huwan ah oo aan dhagartiisa iyo kaartadiisa la fahmi karin oday haddana dhalinyaro ah sheekh haddana caamo ah mooryaan haddana nabadoon ah haddii aad taqaano soo mishan garay si uu ogaado inaan dabeecadihiisa tilmaamay iyo in kale saddex kan ugu dambeeya waxaa la yidhahdaa maxeelayste horta waa nin dhalinyaro ah oo fudfudud oo khariban ababku ka halaabay wax walba oo xun buu sameeyaa haddana sidaasay tahay sidii ninkii hore ma xeelaysto xariif ma ahan wuu xaadiraa wuu la bareeraa foolxumada isbaara hadduu dhiga tago qoray buu la taagan yahay far buu saaranayaa food buu jaranayaa tubaakuu laamiga ku dhex cabayaa khamrada istaaguu ka dhuuqayaa gabdhaha wuu kufsanayaa waa orgiyoo kale wax allaale wuxuu arko uu ku boodaya wuu dhacaya maalin walba gartiisa iyo xalkiisa lagu jiraa marka dambena dadkiisa iyo tolkiisu waa iska saxiixaan waxay yidhaahdaan saariq weeye qof allaale qofkii arkaa ha iska dhiciya ayay yidhaahdaan waa saariq annaga waa naga saxiixan yahay wixii uu geystana looma soo aado wixii loo geystana soo doonan mayno beri buu naga yahay ayay yidhaahdaan ninkaa sheegaya wuxuu yahay ninka tuugga oo taariga oo masoomaha ah intaasoo xumaanahu samaynayana aan la dhuuman oo ilaahay hadduu ka xisho way aadanaha aan ka xishoona la bareera isbaarada jidka u taallo gabdhaha kufsada wax walba uu samaynayo kuleh ilaahay haddaan ka cabso way ma aadanaan ka cabsanaya taasoo dembi labaad ah ninkaas tol iyo dad midan lahaa ninkaasoo kale soo in la saxiixan ma warigata inaan ninkan u sheegay damalihan ninkaas nin maahan ka tag ninka dabeecadda saddexaad leh haddii aad garanaysana soo mishan garay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si faafiya muuqaalka